الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وناكسين داوديال كوسو دوادا مركلا يا برنامجك وراركا عاوة قضبضا برنامجكنا عاوة أن يدكو وحينو وحاكمده kooxaha iska caabinta Gaza oo ka warbixiyo qarax lagu burburiyay gaari Israa'iili ah gudaha xaafadda Al-Zaytuun ee Gaza. Israa'iil ayaa sii wada beegsiga teendooyinka barakacayaasha Gaza iyo qorshaha qabsashada magaalada Gaza. Tirada suxufiyiinta Gaza lagu dilay oo gaartay 239. Xafiiska Netanyahu oo war ka soo saaray heshiiska xabad joojinta ee Xamaas ee aqbashay. Denmark aqoonsiga Falastiin waa arrin waqtiga kaliya dalal badan oo Yurub iyo Kanada ahna ku biiraya aqoonsiga qaramada midoobay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo meesha ka saaray ciidan Amerikaan ah oo la geeyo Ukraine iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo amaanay shirkii Alaska dhammaan qodobadan iyo kuwa kale ee qaybtii falaqaynta iyo wixii warar degdeg ah inuu soo kordhay inta barnaamijkan ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa daawadayaal maxamed Caade oo wararkan soo duway ayaa khadka ku jira maxamed inoogu bilow wararka ugu waaweyn caawa سرايا قدس ayaa waxa ay sheegaysaa inay burburiyeen gaadiid military oo ay Israa'iil leedahay waxayna la egteen qaraxyo isagoo marayay xaafadda Al-Zaytuun ee koonfurta magaalada Gaza waxa ayna arkayeen dagaalyahanadu Israa'iil oo ciidankeeda dhaawaca ay kuwa dhintay daad gureynaysa maanta waxaa gashay maalintii 683 ee dagaalka xasuuqa ee ka dhanka Mareykanka Gaza ciidanka Israa'iil ayaa wada inay bartilmaameedsadaan teendooyin ay ku jiraan barakacayaal iyo dad gargaar raadinaya iyagoo wada in ay weerar ku qaadaan deegaanka Khan Yunis xaafad ku taala oo la yiraahdo Mawasi waxayna xabado ku fureen dad samafal doonayay oo ku sugnaa waqooyiga Rafah ee koonfurta Mareykanka Gaza dhaawac iyo dhimasho intaba waa jirtaa ciidanka Israa'iil ayaa wada in ay burburiyaan guryaha Mareykanka Gaza ku yaala ayagoo isu diyaarinaya waxa lagu sheegay qorshe military oo ballaaran oo ay rabaan magaalada Gaza iyo deegaanada ku xeeran in ay qabsadaan iyada oo abaanduulaha ciidamada qalabka sida ee Israa'iilna uu u soo bandhigayo wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz qorshaha uu rabo inuu dagaal ku galo 46 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay meelo kala duwan oo ka mid ah Mareykanka Gaza sida ay sheegayaan ilaha caafimaadka ee Gaza waxaana muuqata in tirada suxufiyiinta ah ee ku dhintay dagaalka Mareykanka Gaza inay hadda tiradooda gaartay 239 warbaahinta Mareykanka Gaza ayaa ku waramaysa in tirada suxufiyiinta ee dhintay si olakaca Israa'iil u dilayso xafiiska Netanyahu ayaa dalbanaya in kontanka maxaabiista ee ururka Xamaas gacantooda ku jira in la soo daayo warbaahinta rasmiga Israa'iil ayaa sheegaysa siyaasadda Israa'iil inay tahay mid joogto ah wax isbedelan uu ku imaanin Israa'iilna waxay dalbanaysaa in maxaabiista dhammaan la soo daayo sida ku xusan xeerarkii la isla gartay Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in tilaabooyinkii ugu dambeeyay ee laga qaaday ururka Xamaas inay dhow yihiin in la dhameystiro mana ka hari doona bay yiraahdeen Israa'iil ilaa iyo inta maxaabiista kulligood la soo deynayo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka Yair Golan ayaa sheegay in xukuumadda Netanyahu iyo Smotrich in ay afduubeen wadanka